dagaalka canka hadala oo sababay dhaawacyo kala duwan la isuna adeegsaday mindiyo ayaa ka dhacay magaalada Trondheim ee dalka Norway. Dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in uu dhexmaray dhalinyaro ku sugan magaaladaas, waxaana la soo warinayaa in ay ku dhaawacmeen dhowr qofood. Waxaana lagu soo waramayaa in goobta uu dagaalkan gacanka hadalka tooreyada la isku adeegsaday uu ka dhacay ay si degdeg ah u gaareen ciidamada booliska iyo sidoo kale gurmadka degdega ah ee dhanka caafimaadka. Waxaana lagu soo waramayaa in isla goobta lagu dabiibay isbitaalkana loola cararay dhowr qofood kuwa oo la soo warinayo in ay soo gaareen dhaawacyo loo malaynayo in ay mindiyo yihiin. Booliska ayaa ku waramaya in dhowr ka mid ah dadkii dhibka geystay ee goobta ka baxsadeen, waxayna intaa ku darayaan in ay gacanta ku hayaan laba dhalinyaro ah kuwa oo hadda iyaguna dhaawac ah loona qaaday isbitaalka magaalada Trondheim. Booliska ayaa sidoo kale sheegaya in ay xaaladani si dhaba u qaadanayaan oo ay baaritaan xoogan ku sameynayaan kiisna ay ka fureen, maadaama gacanka hadalkan ay u dheereed in la isku adeegsado toorey ama mindi taa oo dad dhowra lagu dhaawacay, haddana ay isbitaalka u yaalin dhaawacyo ka soo gaaray goobtaas. Dhalinyaradan ayaa lagu soo waramayaa goobta ay ku sugnaayeen in uu dagaalka ku dhexmaray, lamana oga halka ay tooreyada ama mindiyadaha ka keeneen markii uu dagaalkaasi dhexmaray. Halka wararka kuwooda ugu door karoon ay idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.